ay maalintii koowaad ahayd ee xisbiga kulmiye u lahaa inuu ku muujiyo cududdiisa doorashada ee maanta ku beegnayd oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdine uu ku soo beegay socdaalkiisa ugu horreeyay magaalada Burco ee kambeynka ayaa waxay sababtay inaanu saacadan soconno xalayto waxaa magaalada Burco iyaduna ka dhacay xaflad weyn oo dadka magaca magaaladan ku abtirsada ay leeyihiin oo kumanaanku ku muujiyeen taageerada xisbiga kulmiye oo hayeen maanta waxaan idinku bishaareynayaa dadkii kulmiye taageersanaa weligoo taageersanaa inay magaalada kulmiye maxaa leedahay magaalada Burco kala kulmeen farxaddii ugu wanaagsaneyd ee ugu badnayd waxaan idin ballan qaadayaa oo maanta aan idinku bishaareynayaa qof kasta oo kulmiye ahaan jiro maalmo dhaweyd yidhi kulmiyaan ka baxay inuu maanta fartan dhexda ka qaniinsan yahay oo uu isku ilxaamay sidaynu ognahay magaaladan Warcibraan iyo dadka ka soo jeeday agaarkeedu weligood waxay ahayd xisbiga kulmiye mashaariicda magaaladan laga fuliyay waqtiyo badan waxaa fuliyay xisbiga kulmiye shaqaalaha ugu badan ee dawladda u shaqeeya ama meelo kale ka shaqeeya intooda weliba dawladda u shaqeysa waxaa la qoray intay joogtay maxaa la yidhahdaa dawladda kulmiye war ma cidaa ku doorsanaysaan baa jirtay halkan haddaynu u yar soconno waa garanaysaan magaalada Buuhoodle intay idiin jirto magaalada Buuhoodle intay idiin jirto waa garanaysaan waddankan ciddii hore u difaacday ee u xoraysay ee haddana difaaceedii aqoonsigeeda u heegan ayaynu codkeenna siinanaa codkeennu tijaabo geli maayo codkeennu tijaabo geli maayo codkeennu tijaabo geli maayo waan ku kalsoonahay dhiiggayga ku aqaanaa oo dadka gobolkan togdheer degan aan ku aqaanaa oo dadka jiidan gobolka bariga togdheer degan aan ku aqaanaa jiirkoodu iyo dubkoodu inuu ka samaysan yahay qadiyadda dad xisbiga xambaarsan qadiyadda Soomaaliland jiritaankeeda helitaankeeda ilaalinteeda difaaceeda dadka ku suntan ayaa cod ku leh bisha February marka la gaaro mashruuca ugu weyn oo laga soo biyo xidhana oo laga